kulanti wacan waxay soo dhamaantii khiyarta hawada naga daawanaysaa daawadayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelanayo deeqa aadan muuse deeqa afro oo kamid ah fanaaniinta sida weyn codkooda maalin aad u tiro badan ay dhageystaan heesaheeda iyo sidoo kale fankeeda deeqa ayaa dhawaan waxay soo saartay muuqaal video ah oo shacabka Soomaalida oo dhan meel walba ay joogaan daafaha caalamka ay runtii muran fara badan ka dhexleeliyay hadaba waxaan leeyahay deeqa ku soo dhawow marka koowaad TV-ga dalmar walaalo mahadsan tahay waan dhawahay waana kaaga mahadcelinayaa deeqa afro sidaan hordhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aad ay u hadal hayaan bal horta waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad u soo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aad ka uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii dalmar walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii أنا كنت لقلين سي أنا كنت لقلين بقولعي سي أنا كنت لقلين بالله ضوي سي أنا كنت لقلين وكبحي هذا ما مركز نسوا نقولنا إن مركز يكتها هذا باب الرياكشن كي كذا شيء أما تدكو إن فكر محاد كعجز سوا نقضي إن مركز تدوين هاي كحد لين مقال كاس شكته إنه سخالة ضو بحي والله دقود قف بس بقوها الله dadkeena Soomaaliyeed waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay dadkiisa abuurtay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim bir Ilaahay qofkii turjubaana Ilaahay uma baahna qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh tarbiya leh bini aadamtinimo leh aqliisan aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda ay leedahay marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo aad moodeen adduunka loo soo diro leeyihiin dadka ku ciqaaba qofkiina marka dadka intooda badan dalmarow intii cariiqsadaan bay yiraahdaan madiinta laga leeyahay waa maya ma dalka laga leeyahay waa maya ma Soomaalnimada laga xigaa waa maya ma dhaqan ba laga xigaa waa maya hadaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa laakiin anigu taawan ka duwanahay subhanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqorti laaban dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd de waxaan leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahnaa adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo iyo iska lumin deeqa markaad ka reebto reaction-ka ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan ha ahaato ama heesa ka horreeyba ahaato iyagana maxaad ka leedahay thank you dalmar walaalo waxa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay sababtan idin cafiyeen waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cududaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow in cajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor horta aniga nolosheedii horta anigu
media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxa jirta videogaas talmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhowna waan tusay booliska Sweden waan tusay waxa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii labada indhood ba iska soo xireen baaskoolad madag hal mid baaskoolad gacanta ku haysta midna halkan buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay maya deeqa heesta biir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saasu xog buu baaskoolada u xiray fiidiyowiina wuu damiyey ajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyey arrintii way ku jiraan xitaa leerka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaaciyo ma jirto bilaash qof la iskaga hanjabay ma jirto marka qof gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada ee maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarto oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa in madaxweyne kugu garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markaan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arkay xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ka ooyaa fahmaysaa marka intaas anagu rekarooni ku soo saareen heesaha inta badan ana samaysta كافيه يرانتان soo shubtaa waa heest aniga la igu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen ana samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusneed haday jirto bilis la soo xiriirgelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin I have to deeqa in afro imika in hanjabaad naftaada aba kugu timi sidaynu ognahay shaaciyadan westernka degantay waliba dalalka Scandinavian-ka haweenkana xuquuqdooda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay ee aad soo saartay hadii uu u gacan galo in media-da European-ka ama Scandinavian-ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hanjabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo in muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian-ka oo kale oo la oranayo inantan bal eega waxay sameysay waa inta in jirkeeda soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timi adigu hadii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacay dadka Islaamka iyo Soomaalida may walaalo may taas ma noqonayo ilaahay maana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amurahayga sida kale inuu igu fududeeyo anagu wadankan waa deganahay sharciyan ka haystaa Swedish baanahay guriga waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax inta ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhaxyaacayaan oo dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxa jira meel uu u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yaryihiin intaas waxaan dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahanti ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad Islaam baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka iskaga mashquulsan yihiin anigu waxaan hay baan bandhigaa fahanti waxa weeyaan taana igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana inta aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa degay markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkayga baan u tagay hanjabaad ahayd weligeeyna meelahaas ku arka ma ilaahay lama kulansiyo marka inaan haddana maxaa la yiraahdaa arrimahayga u geeyo ama Soomaalideena waxa anigu waa iska cafiyay waxa la ii dhiman waa cafiyay laakiin
wixii aniga hadda i record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabayay meel bay yeelaan taas adduunka hadda daa iraada waa cafiye xitaa idiga yeelayso qoladaas male sababta kuwii 2 sano ka hor kuwii haddana waaba iska cafiyay wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagayo ama hal caawiyo dhibaato xagga aniga haysatay waan seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aan u geeyay 2 sano ka hor bay ahayd waliba 2 sano way ka badneen dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqda waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga halkaas ku ekaada faant arada la soo xiriirtaan dhibaato arko marka anigu horta saasana u jeclayn ba afaarahayga waxayga iyo ma fahmaysaa haddaan ka badan waayo of course shaqada waa la kala leeyahay haddaan amni xumo dareemo anigu waxaan ku qasbanahay inaan u tago inaan hal caawiyo of course ila tabarka lama haystee laakiin caadi ahaan inaan anigu hawlahayga waxaan dhex Soomaalida dhexdeeda aan anigu runtii aan iyo dhibaatadan aniga hadda ay haysata inaan ula tago hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaal waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabigeeyo indho haleegala caawiyo lagama yaabo fahmaysaa marka saale waxay taano dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteeda waan jeclahay marka dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya inaan muslimiina soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadoodu gaarto ma fahmaysaa marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga adreemaya kiiskan kiis culus weey laakiin Soomaalida way iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay in deeqa in markaad hadda horta waxaan anigu makhraati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan inta badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aanad dadka ku wanaagsan aanad ahayn ama ba yaqaana waana dad darisaho intaa wada socday oo nolol fara badan wax badan dadka waxay yaqaanaa aad iyo aad taas waan kaaga makhraati kacaya qodobka aan haddaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo ee kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay haddii aan qaar kamid aynu halkan akhrino dadka qaar waxaa bay leeyihiin deeqi way kor bay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer waxay gaadhay ay operation isku samayso si ay xubnaha jirkeeda qaar kamid ay u muujiso quruxdooda iyadana comment-yada maxaad ka leedahay dalmaro horta ودي قصص ما يورت وعن قصلي وعن قصرت فلحنت ما موجو وأنا أركي وحاس إيميلها قرقرين لكن تعو كلا هاي إن أنا وضن كان ودقنا هاي رنت هذا كهلا برنامج شو حن كقيب قلا أو تربضن وحيالا بدر دلير ذا اللي وعي قلنا يعني كقيب قلا مر والبا مركا وحيالا أنا قهرت أنت بدن أن كدول أو أن رنتي أن أدك حوج أسارة واحد هاي وحن استعمالها هالكلمة أو أهو وحقات هاي qofka aad tahay ahow anu waan jeclaa qofka wax uu yahay xitaa waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo oo dad kale soo eegan ma garanaysaa marka ahow waxa aad tahay fikrad anoo isticmaalaya ereygaas diyaanado kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisi wax la marmariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaysado waa ka waaniyaa qofku inuu qof fikrad isku socdo waa necbahay runtii waa ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii in aniga operation isku galo إله محمد سبيان كل أرتين ولا شيء دينا شركة جن أوبريشن لقوا الصمين ولقينا نكون فكري لا ما كان مكان قال ما بهني قضب كقدام بي يدنا أكاوي دي فيديو قاسي أتصور تدك واحد اللي هن واحد بلعب متى أو دقيقة أفرع أي وضد أفرتي 2019 كوحي قدام بي يجودي سبب إن لا أكيد دانو dad aad u tiro badan oo video hit ah oo dadka ay aad uga qayliyaan soo saari doona miyaad u bilowday markaa miyaad dareemaysaa kelmadaas ما وما بلابن إن أنا بلابنا مرة بصوبتها وحنا أنا جوهرتها مرة والباب وتاجنا أو عن شعلاء أنا خلد مرة وحنا تاجنا وحيتها ودقن كيجا وحنا تاجنا وحيتها وقد يدي ذا نوع عليها تاسنا ودين كيدا تاسنا أنا خلده أو تصالح النقضة إنه ما نقنيه ما نرتشيني رنتي haddii ay qaar soo saaraan maxaad kula hadday soo saaraan waxaan kula talin laba la iska daayo usho anay ugu dhacday aniga ha igu ekaatee idinkuna ha isrifinayaan sasaa la idin rifine meesha waa la isrifayaa taasaan dhihi lahaa kaliya mana rajaynayo sida kala kaga fiican wal saana hadda rabaa hadii kadib inaan wax ku soo saaro wallah
sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray baa la yiri dayoodi xagad ku baratay cadaaladda masay tiri isha cali ka laalaada marka imka waxaad leedahay usha anay u dhacdo si fiican la ii la isha cali ka laalaada ku qusqaatay way usha deeq afra ku dhacdaa ku qusqaatay وقلنا إسلا فيديو يرنع كلا صوصا. ما يمؤمن وقدام بنتي. وأنا حياة بدر قول حسلت أما الويرة تيبا أورسد. دقة أدمكو سلامة يا كأجنا ما هذه اللي أنا وريسين معاه هالكن نقصي سي وقدام بنتي دقة ما حد كسوق قبل نسا وريسين كوبان أما أنا لا حدتك كداونا لما تهاجر يا شاطئ أنت بعد. دل مرو dadka horta idaawanaya dhamaantood salaamaya sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa ee noo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn baaxad weyn baan ugu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxa iska jira Soomaalidu dhinacay u badan yihiin oo runtii aan aad u xubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibayaal Ilaahay idinkana hayd soo hanuushay waxubsada wax walba xogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hoobi maxaa la yiraahdaa xogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xukminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimo isku leenahay haddaanu dadnahay bini aadanimada horta tii Ilaahayba intaan la gaarin Soomaalidu bini aadanimada lumisay war bini aadanimadu waa basic ugu horeeya hataa dhis fahmaysaa intaasaan kusoo gabagabayn lahaa walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay deeqa afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay deeqa aad iyo aad baan ku salaamayaa inaad barnaamijka igala qaadatay thank you very much dalmar walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aad u qiimo badan runta haddaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidaan walaalahay u jecelahay oo kale ku jecelahay halka qalbaan kaasi jecelahay runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaali ah oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay deeqana waa taasoo waa idin cadaysay videogiina waa laga saaray baad mar igu tiri video allah thank you dalmarow aan si dhamaysto video horta waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay ma raadinay israadin waqti bay nagu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulillah waan helay videogiina waa laga saaray videoyada dambe kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaan iska tuura waa ka codsanayaa waxaan kaloo dalmaro aan sii codsanayaa waxay tahay dad waxaa jira page samaystay deeqa afro anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse oo soo gaaban kaliya ayaan leeyahay page baa waa dhaxe wiili sameeyay page-kaas bil ka hor baa ugu dambeysay in wax lagu share gareeyo waxaan hadda siyaacay oo meelaha maxaa la yiraahdaa xaqan baqaar waxaan arkay leentay sawiradeed soo qaataan waxa ay soo wadaa ka daran yaa isgaaray walaal waxaan leeyahay dadka ay ugu dirina iska tuura iska dhilad gareeya iga balooga dadkuna waxaan leeyahay caawiyo sidii beejadaas oo aniga imataliyo beenta loo tuuri lahaa YouTube-yadana loo kala tuuro qof kasto anigu horta wayda cafi laakiin iska bixiya YouTube-yada qof kasto YouTube-ka gashatay iska bixi haddii kale cafiska qayb la soo noqonayaa oo ku dacweynaya aad baad u mahadsan tahay waa Facebook deeqa oo dad badan ay YouTube-yada dhamaantood iga saara wixii hore bix waxaan soo wadaa ka daran bay ku qorayaan ma yada xitaa fanaaniinta caayaan waxay leeyihiin blaaye aniga yaa khatarsan يعني ميلان waxaan aniga iga suurtay ma qof ma tali karaa qof ma tali kara aniga ma tali kartaan aniga maanta dalmar ma tali karo leesma ma tali karo marka dadkana waxaan leeyahay markaad aragtaan qof oo wax qoraya walaal dadku waxaad moodaa marka qaarkood Soomaalidan waxa israa tolo maxaa ka hore ka qayb qaadanaya ma isdhahayaan ma qofkiiba ma qof kala war waxaan fanaaniinta meelaha la carcaraya ma ahan iyagii anigu horaan ka gartaa fur gudaha gal arag inaga daaya walaalayaal waxa aad iska hor carcaraysan iga daaya aniga ma aha anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse xataa deeqa aadan muuse samaysteen afro iyo real iyo gadaal ka raaciyeen magacuu isbedelaya uu ka ogolaanaya Facebook ma ogtaa aniga kayga page-kayga bil ka horba ugu dambeysay oo wallaahi oo bilaahi in wax ku share gareeyo iga daaya dadka ay ku direen hadaan ku jireen aad baad u mahadsan tahay daawada halka waxaan ugu dhamaaday wareysigii koobnaa
وأنا أوري ضلمر يدق أفرو يقلق قاعدة برنامجك سيدا أي نبت قليل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.